waa tahay daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha le ku soo dhawaada barnaamijkeennii khaaska ahaa ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan oo runtii Ramadaantu ay sanadkan ay ku soo beegmatay amaba aan oran karno waxa ay ku soo beegmatay in ay waqtiga samarka ay dhacday. Bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa sanadihii ugu dambeeyay dalalka Scandinavian-ka iyo guud ahaan qaaradda Yurub oo dhan waxa ay ku soo beegmaysay waqtiga xagaaga. haddaba waqtiga xagaaga ayaa cadceedu aanay dhicin haba yaraatee mararka qaar waxa ay cadceedu dhacdaa 12 fiidnimo waxaanay dib u soo baxdaa kowda habeenimo iyo barka macnaheedu markaa waxa uu yahay inuu qofku uu haysto muslinka ah ee Soomani inuu salaadii maghrib tii cishe taraawiixdii afurkii suxuurtii salaadii subax inuu muddo 3 saacadood gudahooda uu haysto inuu intaas oo hawlood oo waajiba uu ku guto. haddaba dadweynaha runtii ku dhaqan dalalka Scandinavian-ka ayaa sanadkan waxay aad moodaa in ay aad ugu faraxsan yihiin Ramadaantan dheer. dad badan oo aan wareystay kama muuqato haba yaraatee inay ka cabanayaan walow culimada qaarna ay soo saareen fatwooyin ay markaa ay leeyihiin waxa la afuri karaa ama la soomi karaa Sacuudiga. qaar baa waxay yiraahdeen dalalka muslimkeena ugu dhow waa dalka Bosnia kaas ayaad la soomi kartaan lana afuri kartaan. si kastaba haatee bulshada Soomaalidu dhag jalaq uma siinin waxaanay soomaan in ka badan 20 saacadood ka badan iyo dad badan oo islaam ah oo ku dhaqan wadankan Sweden. haddii haddaba aan dib ugu noqdo bal guud ahaan had iyo goor samarka marka ay tahay cadceedu wadankan kama dhacdo winterka ayaa hadaba soo haray winterka saacadaha aad bay u yar yihiin cadceedu ay soo jeedo marka wadamadan Scandinavian-ka iyo qaaradda Yurub guud ahaan habeenkii wuxuu u badan yahay waqtiga winterka ama lagu jiro qaboobaha samarkana cadceedu aad iyo aad bay u dheer tahay sida la ajligeed baa waxa khasab noqotay muslimiin fara badan inay marka ay soomaan waqti aad iyo aad u dheer iyagoo waliba ku qanacsan waxaanay dadka badankooda isku raaceen haddii uu qofku uu kari karo dad badanna way kari karaan ay marka isku raaceen in ay marka ay soomi karaan dadweynuhu. waxaananu idin leenahay barnaamijkeenan ayaa waxa uu yahay barnaamijkeena aan ugu talagalnay Ramadaanta oo aan doonayna bal in aydun wareysiyada halka aan ku qaadnayna aydun bal dhageysataan iyo sida ay dhalinyarada iyo dadweynuhu ay u arkeen labadaba. bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Mustafa ayaa la yiraahdaa walaay horta Ramadaantu khayrkeeda wadataa alxamdulilaahi rabbil caalamiin 12 saacadood baan soomanaanaa walaay waxaan leeyahay dadka islaamka ee Scandinavian-ka ku nool qofku hadduu caafimaad qabo waa inuu soomaa. nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri qofku 3 jeer baa amiino wuxuu qof qaan gaadhay oo aan soomin aamin ilaahay naarta ku fogeeyo qof nabiga lagu saliyo oo aan soomin aamin naarta lagu fogeeyo qof waalidkii oo nool aan ka ducaysan naarta lagu fogeeyo. marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka waa inaynu bisha Ramadaan soonaa waqtiga badan ha eegina khayrka ku jira eega. marka adigu imisa saacadood baa soontaa maalintii? maalin waxaan soomaa 12 saacadood maalin waxaan soomaa 20 saacadood iyo badh ayaan soomaa. gaajo iyo ma dareentaa haraad iyo markaa? alxamdulilaahi rabbil caalamiin wallahi ilaahay bay nimceeyayna waxba ma dareemana oo wax kasta waxay ku xidhantay niyadana. markii ay culimo fara badan soo saareen fatwooyin ay leeyihiin Sacuudiga ha lala afuro qaar ay leeyihiin Bosnia ha lala afuro iyada maxaa dareentay? wallahi man si raacin ba masaajidkan Rangibi ayaan ku xidhanahay kadib waqtiga laga eedaamo warqado yar baa lana siiyaa qiimooyina warqadahaas ayuun baan ku afurnaa xitaa haddaan xaafadda joogo haddii kale aan suuqa joogana waxaan la afuraa inuu masaajidkan 10 habeenimo markay tahay ayaan afuraa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waa tahay daawadayaal dhalinyarada ayaa saf halkan ku jirta oo le aniguna waxaan rabaa inaan ka hadla Ramadaanta in dhalinyaro baan halkan kula kulmay magacaaga dadweynaha u sheeg. waxa weeye cilmi jaamac ali waxaan ku noolahay wadanka Sweden meeshan horta Ramadaantu waqti badan ayaa laga sooman yahay iminka waa ilaa 6 galabnimo qorraxdan waxay maraysaa ilaa xilli casar ah oo ilaa 3 galabnimo marka hadii kulli meeshan inta badan gaajo iyo haraad dareemaysid waa waqti iska qabo waa qowga yar badan laakiin ka samar tahay marka hadii wallahi waa bil iska barakeysan alxamdulillah ilaahna barakeeyay waxaan leenahay meel kasta wadii oo salaamayna marka bal waxaad iga warantaa markii aad markii ugu horeysay Yurub aad ku soontay ba ma aniga kulli dhowr jeer aan ku soo dhowr hore waan ku soomay marka bal ka waran Ramadaanta 20 saacadood ka badan awoodeeda dhalinyarada tahay kulliba laakiin markaad eegtay ka waran 20 saacadood ka badan in la soomayo kulli wallahi iminka waqtiyada dhowr iyo 20 saacadood ilaa 20 saacadood weeye laakiin de kulli wax dhalinyarada inta badan wax amal oo wax la qabtaan aan jiraan shaqo badan iyo waxaasi oo inta badan la iska hurdaay. iminka waa 7 barkii fiidnimo waqtiga Sweden cadceed iminka haddaad tilmaanto halkee taagan tahay ilaa iminka hadii wadamadeena loo eeglaha ilaa 3 galabnimo ilaa cadceed wayna soo eegaysaa
waynu isaga ilaa 3 galmo taagan tahay marka halkan dhammaan wax ka sameeyay dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogo waxaan leeyahay Ramadaan Kariim iyo maca salaam aad baad u mahadsan tahay dhalinyarada ayaa saf ku jirta dhalinyaro fara badan ayaan xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm oo ah goob ay dhalinyaraduna ay ku badan tahay adiguna dadweynaha magacaaga u sheeg magacayga waxa la Salmaan Cali baa leeyahay Stockholm Rinkeby degan Stockholm Ramadaan tolaa aad iyo aad u dheertay dal marow bal ka waran imisa saacadood baa soonta adiguna saacada wallahi wala 12 baa hay markii ugu horeysay Yurub ku soontaa waa markii labaad bal waxaad iiga warataa bal marka maxaad dareentaa yani maadaama ay saacaduhu dheer yihiin sideebaad maxaad samaysaa in aanad harraadin in aanad gaajoonin wallahi waa iska cibaadaysanaa waxaan ku uri waa ismashquulnaa saa loo direemid way Ramadaan aad bay u dheertahay marka waxaan ku uri qofku dee wuu soconayaa gebigiisa marka imika cadceed wayna soo eegaysaa bal dadkii dalka jooga haddaad uga warrami lahayd Ramadaantani sida u dheer tahay maxaad ku tilmaami lahayd wallahi dadku waxaan lahaa Ramadaantu waa aad iyo aad u dheer tahay waxaan ku riyado imika ay tahay 8 habeen mise 7 ayaa haddana qoraxdu waddanka u dhiganta 3 galabnimo ama 4 galabnimo sax ka aad iyo aad u dheertay wallahi xilligan afar kama qodna waa tahay daawadayaal wali waxa noo sii socda waraysyadii googooska ahaa dhalinyarada runtii barnaamijkan waxaan ugu talagalnay bal inaad ku dhugataan isla markaana aad ku eegtaan sida looga soomo qaaradda Yurub gaar ahaan dalalka Scandinavian-ka oo 20 saacadood in ka badan ay dhalinyarada in badan ay soomantay adigana magacaaga magacaygu waxa la yiraahdaa Liibaan Maxamed Liibaan ku soo dhaw telefishinka qaranka bal waxaad nooga warantaa waad soontaa si fiican imisa saacadood baa soontaa 22 saacadood wadaadada qaar waxay yiraahdeen waa in lala afuraa Sacuudiga qaar baa Bosniya lala afuro adigu arrinka ma samaysay wallahi horta waxa ka jira khilaaf badan ka jiro aniga soonka ka horeeyay waxaan ku soomay wadanka Sweden gaar ahaan magaalada yiraahdo Kramfors oo dhinaca waqooyiga ah Umeå u dhow oo ka badneed waqtiga hadda Stockholm ka badan marka alxamdulillah anigu waxaan taaganahay maadaama Ramadaankan ku soomay Stockholm tii horena ay ka yar tahay 22 saacadood waa isha maxaan ku dhaawaa iskala qabsanay soonkana waxa waa sidiisa waxa ku jirto baraka ku jirto marka sidaasan ku soonnaa maxaa ugu dhib badan baad u malaynaysaa marka 20 saacadood ka badan la soomayo wallahi waqtiga aad u dheer yahay maxaan ku raahdaa daal isha go'on intaba iyo rafaad waa arkaysaa marka waxaan ku sabraynaa maadaama la yiri qofka sooman wuxuu farxaa 3 waqti marka waqtiga koowaad oo ah qofka markuu afuraayo iyo waqtiga labaad oo ah maxaan ku raahdaa ciida oo markay u dhamaato bishii Ramadaan 30 maalmood iyo maalinta qiyaamaha oo la kulmaayo maxaan ku raahdaa Ilaahay oo laga abaalmarinayo sidaasan macnaha ku sabarnaa aad baad u mahadsan tahay nin dhalinyaro oo kale ayaa ku xiga oo anigana waa inaan ka qayb qaataa waraysiyadan goosgooska ah runtii daawadayaal waxaan ku sugannahay magaalada Stockholm nin dhalinyaro ah isaguna halkan taagan magacaaga aniga waxa la yiraahdaa Jamaal Cabdirasaaq Maxamed Jamaal ma soontaa waan soomaa imisa saacadood wallahi 20 ilaa 22 in lagu qiyaaso marna ma istiri jabi markaad ilaa 10 ilaa 12 saacadood soomanayd wallahi may isku maandeynana jabiyo laakiin meesha waxa jirta mararka qaar baa waxa iman kara xanuun iyo waxyaabo kale maadaama sabab daruuri ah qofku wuxuu jabin karaa jiri kara laakiin isku maandeyn marna inaan jabiyo bal waxa dadweynaha uga sheekaysaa cadceed hadda xagee taagan tahay والله عدعيد ده waxay sidii dadkeeni deena 7 subaxnimo taybaa la moodaaba iyo mooji xilliga ka dhacaysay lixdii adigu ilaa waxa lagu qiyaasi karaa inay cadceed taagantay 4 iyo 5 meelaha yani cadceed dalkeeni taagnaan jirtay waxaana dhacaysaa 3 saacadood ka bacdi 3 saacadood ka bacdi bay dhacaysaa marka 20 ka saacadood ee aad soomantiin dhalinyaraha hadda tihiin ma turub iyo dubnad iyo baad ciyaartaan mise masaajidka ku xirantiin والله ما horta waxa dhacday turubkiya waxa horta khamaaraadka anu kama soo qayb gal badan halkan xaafadana lagu ciyaaraa xaafadana maanta dar ilaahay waaba aduun baynu wada kulanay iyo xeertan oo hadlaysa marka mobilkana halkan aad lagu ciyaaraa halkan ma yimaado marka waxaan oran lahaa wallahi waxyaabaha bari baan ka ahay aad baad u mahadsan tahay ugu dambeeyad halkan ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa wallahi dhammaan family-gaygi oo dhan baan ka salaamayaa ma lama soo koobi karo ilmo cabdi soo majeysto oo dhan maxay haydo waan salaamayaa dhammaan reerkeegi iyo cidii taqaana saasaan oo lahayd aad baan ku salaamayaa dhalinyaradu aad bay magaaladan ugu badan tahay oo runtii dhalinyaro fara badan ayaa wadanka Sweden waqtigan ku sugan waxaana jecelahay bal inaan warayso magacaaga dadweynaha u sheeg magacayga horta waxa la aniga Saciid Sidiiq Ibrahim waxaan ku magac dheeray sanka imisa saacadood baa soontaa waxaan soomaa ugu yaraan 20 saacadood
wadaadada qaar baa yiri Sacuudiga halala afuro qaar baa yiri Bosnia halala afuro kuwa mid markaa dhageysatay wadaadadaas may horta ma dhageysan laakiin kulay Sacuudiga loo badan yahay dad badan baad aragto Sacuudiga la afuro bal maxay ku adag tahay markaa 20 saacadood ee la soomeeyaa 20 saacadood la soomeeyaa waxa ku adag horta aniga imika iguma adka oo waan la qabsaday laakiin eemihii ugu horeysay ee igu cusbayd horta waan la qabsan waayay oo igu adkeed in badan waan karaysay laakiin waan iska dulqaatay imikana aad nool haystaa si fiican noon samaa bal haddii aad dhalinyarada wadankii joogta aad u sharaxdo jawigan maanta yacni cadceed weyna dul taagan tahay ninka aan weligii Yurub iman haddaad u sharaxdo maalintu sida u dheertay sida baad u sharxi lahayd maalintu sida u dheertay waxaan u sharxi lahaa horta qoraxdan ayaan badhacaynba qoraxdu way bilowmaysaa waxay soo baxaysaa labada habeenimo iyadoo aan dhicin masaxanaaba iyadoo aan dhicin waxa weeye 12 habeenimo haddana ma dhicin qoraxdii wadankiina waxay ka dhacaysaa 5 galabnimo marka isbedel weyn baa ka jira yaad halkan ka salaamaysaa halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday Saafi Xasan Axmed iyo ciyaalkaygii aabbahay Istiiq Ibrahim aayaday Saad Xaaji Nuur kullu waxaan leeyahay Ramadaan Kariim aad baan kugu mahad celinayaa daawadayaal barnaamijkeennii khaaska ahaa ayaa qaybo kale aan guda galaynaa iyadoo ay dadweynuhuna ay runtii ay aad u fara badan yihiin ayaa waxaan jeclay bal in aan waraysiyo kala googoosa qaadno sida ay daawasho wacan dadweynaha magacaaga u sheeg magacayga waa Guulid Cabdilaahi Bakar waa markii labaad aan Sweden ku soo sanadkii labaad run ahaantii wallahi hortu waqtigu dheeray marka horeysa qofku la qabsan maayo laakiin marka labaad way fiicantay dadka Scandinavian fahamku nool way kala duwan saacada 22 saacadood aan mar soonaa mar 20 saacadood ma sha Allah runtii wallahi way fiicantahay bal dhalinyarada wadankii joogta ee aan iyagu ka warhayn in cadceedu imikayna dul taagantay iyadoo 8 fiidnimo ku sii socota bal haddaad uga sheekayn lahayd cadceedu inaanay dhicin sidee baad ugu sharaxi lahayd wallahi dhalinyaro runtii badankooda imika iskaarsiinta isticmaalaan way ka warqabaan saacadu waqtiga dhacday waxa way wada og yihiin runtii markaas iyagu soo afraan bay dhacaan afar wanaagsan ma san ku dhaana marna gaarno wali afarkii runtii ogiyo wallahi way og yihiin ugu dambeyntii Ramadaanta adigu 20 saacadood ma soontaa mise Sacuudiga la afurtaa wallahi ma runtii anu Sweden ma la afraa waxaan afraa 12 iyo waxaan afraa 16 mir meelaha 12 mir waxaan ku afurnaa Stockholm la afurnaa no Sacuudi lama afurno wala shay dadka qaar la afuraydaa wax la afuraan Sacuudiga waxa runtii laakiin ma arag gaajo ma dareentaa marka 20 saacadood haddii gaajo dareemaysa aduu markay tahay kala kanfan meel 5 galabnimo meelahaas runtii laakiin waxaan cunaa cuntada adag ee qarmacdiya bahashii ma garanaysaa lagu soo habibi xasaa cunaa sama dhaqaajino marka waa Ramadaanta laakiin haraadna ma dareentid haraad ma dareemno cimilada iska qaboynta badan maanta shalay ugu kuleed ma sha Allah ayaamii hore 10 ka horeeyna roob baa noo daayay ugu dambeyntii dhalinyarada wadankii idinka daawanaysa koox dhalinyaro aad tihiin xaaladiina inkastoo aad ay u fiican tahay maxaad ku salaami lahayd dhalinyarada iyo dadkii ummadda ku daawanaysa wallahi waxaan ugu salaamay salaanta islaamka ku salaamaya ilaahay Ramadaanta bash barwaaqayna ku gaarsiin leh amiin adiguna ma soontaa ka waran Ramadaantan wallahi aad buu fiican tahay ma sha Allah magacaaga dadweynaha u sheeg magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxiim baa la yiraahdaa Cabdiraxiim Saciid Cabdi magacayga la yiraahdaa waxaan ku noolahay wadanka Sweden xaafadda Stockholm gobol caasimadda Stockholm xaafadda Ringaby intaagna imka marka 20 saacadood waa soontaa adiguna waan soomaa absolute 20 saacadood marka qaarkood 20 saacadood iyo wax ka badan baa dilis ma jiray laakiin bishan Ramadaan insha 20 saacadood baan ka soonaa alxamdulillah rabbil caalamiin wallahi ugu dambeyntii aad halkan ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa xaafadaydii dadkaygii waa ka salaamayaa waxaan ka salaamayaa oo kale dadkii asxaabta aan ahayn ee wadankii joogay dhamaantiin waxaan leeyahay Ramadaanteeda ilaahay bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo والله الزمن في السويد طويل لكن تحس بلذة الرمضان يعني الواحد يعرف انه صايم يعني تشعر انه في رمضان حقيقي يعني ودي تؤجر عليها ان شاء الله كل ما يزيد الزمن كل ما تؤجر ان شاء الله انت في السودان لا انا من اريتريا 20 ساعة هناك صايم والله طبيعي يعني شيء عادي يعني أمارس حياتي زي وزي أول يعني ما متضايق ولا شيء شكرا ألف مرة بارك الله فيك شكرا لك dadka ajnabiga ee wadankan ku soomay ayaa iyaguna aad u fara badan يعني كيف يعني في شهر رمضان في هناك السويد والله رمضان طبعا خير وبركته والأعمال طويلة طبعا
فطبيعي يعني حتى كويس. من 20 ساعة كيف يعني ماشي صعب يعني كثير؟ لا ما في صعب على أبوني طبعا 20 ساعة بزحتها سافرة على أبوني سميها الليتني لكن سافرها الليت وعادي طبعا زي نواصل نشاطنا يعني من نشاط ينبطل. daawadayaal barnaamijkeennii runtii dadweyne way fara badan yihiin iyadoo aan halkan kula kulmay inama Eritrea ah oo iyaguna iiga sheekeeyay in ay runtii ay rabadaantu ay aad u dheer tahay laakiin ay aad ugu faraxsan yihiin dadweynaha runtii muslimiinta ah ee ku dhaqan dalalka Scandinavian-ka waxay isku raaceen in qofku hadduu awood u leeyahay inuu soomi karo dalalka Scandinavian-ka ayaan ku sugannahay waana bisha barakaysan ee rabadaan halka daawadayaal waxay noogu dhamaaday barnaamijkeennii khaaska ahaa ee aan ugu talagalnay bal in ay dadweynaha aan ka wareysanno maadaama saacado aad u fara badan la soomo dalalka Scandinavian-ka وأنا عبدالكريم موسى عبد الدلمر إيا دمان صحفيين تيفيga ee igala qayb qaadatay barnaamijkan waxaananu idin leenahay inta aynu aragtino noocan oo kale hawada ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu